bal ila dhageysta ninkan taliyaha ah oo hayo nin la sheegay inuu caayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. ninkan waxa la weydiinayaa maxaad u caaysay madaxweynaha, miyaadnan ogeyn inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya? waa uu jawaabay wuxuuna yiri haa waan ogahay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu yahay mana cayn jirin. hadda ina caayaysa waxaa sababtuu dhahay markaa caynaya xashiish ayaan cabay, dabcan xaaladdan ku sugnayna ma garanaynin, saas baan ku caayay. awal hore waan noolaa waana joogi jiray, wuuna ahaa madaxweyne, mana cayn jirin. ninka taliyaha ahaa ninkii intuu si kale u ciqaabi lahaa ama xashiishka uu cabay dabagal uu ku samayn lahaa ama uu wacyigelin u samayn lahaa ama maxkamad u geyn lahaa, waxaa lagu hayay ninka inuu caayay madaxweynaha. ninka taliyaha ahaa oo ninka gacanta ku hayay maskiinka oo weliba u xirnaa waxa uu sameeyey bal wax aanan macquul ahayn oo fool xun. wuxuu u yeeray nin kale oo askari ah, war ii xir buu yiri ninkan eyga dhalay. waa nin taliya ah, xarun cadaaladeed joogo, dadkoo dhan ay u siman yihiin. qalad nin kusoo qabtay oo qaladkaas maxaa u samaysay asagii qaladka la rabay in uu saxo ayaa wuxuu galayaa qaladkii asaga ahaa qalad ka daran. bal waxaan maxaa lagu tilmaami karaa? soo lama dhihi karo dad meesha la keensaday waaye oo ii xirxir la yiri dadka. qofka aniga ila hadlaa ii xirxir oo khabyaalada ugu keensaday sababtoo ah nin qaran ama laga rabo dad inuu hago noocadda uma hadli karo. waa nin xafiis joogo, waa nin taliya, waa nin la rabo inuu dad u garnaqo. asagii ayaa waarid ninkii iyo waaridkiisa aflagaadeynaya. ii xirna wuu leeyahay. ninkan nin buu caayay, madaxweynaha ahaada laakiin nin waaye. wuu qaldamay, wuu sheegay inuu weliba wax kala qalbigiisa ku jireen oo daroogo ay ku jirtay. wuxuu mudnaa in si kale lagu xaliyo ama maxkamad la geeyo daroogadaas iyo waxyaalahaasna si looga yareeyo. laakiin in la caayo asagii farciisa, booliska Soomaaliya masaasuu qabaa dastuurka aad ku shaqaysaan? masaasaa xafiiska lagu joogi karaa? masaasaa shacab loogu adeegi karaa? marka waxaan ku baaqayaa hadday dowladnimo jirto, kala dambeyn jirto, ninkan taliyaha ah intaanan la wareysan ama la ciqaabin ninka shacabka ah, waa in ninkan taliyaha maxkamad uu kasoo muuqdaa. hala gaarsiiyo maamulka uu hoos tago ninkan taliyaha ah ee ninkaas saas u galaayo, ee qaladka intaas la eg samaynayo, bulshadana u gudbiyay sawirkaas foosha xun. oo weliba wuu duubahayaa codkiisa wuu duubayaa, muuqaalkiisa wuu duubayaa, wuu ku dhiiran yahay wuxuu samaynayo. bal ila arka bal ninkan دولة الوجود حشيش أحسن يا أيه وكا حشيش قدينا على ملعونة ولا ما معناه أول ونجي تصل جوانه ملعونة أنا أكثر ما بس معناه حشيش عن عبدتي سامس يا يمشي أنا قلت أيه وكا لما خلنا عايزين ما أيه ما أعرف ما قلنا أيه وكا نحوينا بسماء وهو صار مثلا عشان محمود يقول سلام وصلت قلت له هو قال لي شيء الحاسب حشيشه عشان اساسه يفهم حكم المشي اللي يجي ليش عشان اما صدق لا هي تلي هي ايوه موتور كيلو